السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال وبولموج ميديا uga barateen halkan inuu ka soo gudbiyo wararka iyo warbixinada ka dhaca dunida kooda ugu heesaaway waa maalinimo Isniin 8 bishii lahaad 2020 waxaa magaalada Muqdisho maanta oo Isniina ka dhacay mudaharaadyo aad u ballaaran kuwaas oo lagu taageerayo dowladda federaalka Soomaaliya mudaharaadyada ama dibadbaxyadan ayaa waxaa si habsami leh isugu soo duwariday duqa magaalada Muqdisho iyadoo ay ku dhaceen mudaharaadyadaan kuna dhamaadeen si nabadgelyo ah iyagoo aan la soo sheegin halkaasi ay wax dhibaato ama saameyn ay u geysteen shacabka ku nool magaalada Muqdisho waxaa kaloo aan idiin haynaa daawadayaal diyaarad sida in ka badan 130 qof ayaa waxa ay ka timid dalka Hindiya dadkaas oo kulligood Soomaali ayaa waxa la sheegay inay muddo 3 bilood ka badan ku xanibnaayeen halkaasi diyaaradan soo qaaday dadka ayaa waxa u dirtay dowladda federaalka Soomaaliya sida ay wararku sheegayaan dadkan ayaa markii ay ka soo degeen garoonka aadan cadde waxa lagu sameeyay kulligood baaritaan iyaga oo ay marayeen laanta caafimaadka ayaa waxa la sheegayaa in dadkan kulli ahaantooda ay bad qabeen waxaan kaloo idiin haynaa daawadayaal dalka Tanzania ayaa waxa la sheegayaa inuu cudurka coronavirus uu si xun ugu baahay kadib markii madaxweynaha dalkaasi uu amray inaan la xirin magaalada iyada oo la sheegayo in ay gabi ahaanba dalka Tanzania aanu ka jirin wax lagu dhawnaya waxa lagu soo waramayaa inuu cudurku aad ugu sii fidayo dalkan ayaa dhawaan dalka Kenya waxa uu ka xirtay xuduudda kadib markii uu lagu sheegay in Tanzania uu sare u sii kacayo faafidda cudurka coronavirus waxaan kaloo idiin haynaa daawadayaal dalka South Africa ayaa maanta oo Isniina waxaa dib loo furay iskuuladii dhammaantood iyada oo iskuulada marka ay ardaydu imanayaan la dhigay qalabka wax lagu baara amaba lagu tastigareeyo inuu qofku qabo COVID-19 South Africa ayaa waxa ay tahay dalka Afrika ugu horeeya oo cudurkan sida ba'an uu u saameeyay iyada oo la soo sheegayo in ka badan ilaa 6,000 oo qof inay ku dhimatay dalka Koonfur Afrika oo u dhinteen cudurka safmarka ah ee dilaaga ee dhammaan dunida sida xun u saameeyay South Africa ayaa waxa kaloo la soo sheegayaa in lagu soo rogay bandow khafiif ah goobaha laga adeegto sida suuqyada waaweyn iyo meelaha supermarketada ay dadku ka gataan waxyaabaha daruuriga ah waxaan kula daba idiin haynaa daawadayaal dalka Pakistan ayaa waxa la soo sheegayaa inuu aad u sara kacay cudurka iyadoo ay Pakistan tiradu hadda marayso sida la sheegay in ka badan 100,000 oo qof sababta keenta ayaa la yiri Pakistan inuu cudurkan ugu fidaaya waxa ay tahay inay dowladda furtay xilligii ciida goobaha masaajidada iyo suuqyada waaweyn ay dadku ka dukaameystaan taasa ugu wacan ayaa la yiri inuu ba'an ugu fido dalka Pakistan cudurka ra'iisul wasaaraha dalkaasi Imran Khan ayaa waxa uu dalbaday gargaar degdega oo dhinaca kharashka isaga oo yiri waa in dalka Pakistan laga kaalmeeyo dhaqaalaha si ay ula dirirto ayuu yiri cudurkan COVID-19 iyadoo daawadayaal ay dunida ka sii socdaan wali mudaharaadyo waaweyn oo laga soo horjeedo dilkii ninkii madowaa lagu geystay dhawaan dalka Mareykanka ayaa waxa la sheegayaa in magaalada London ay isaga hor yimaadeen dibadbaxyo iyo booliis kuwaas oo booliiska ka hortaga rabshadaha kadib markii la soo sheegay in ka badan ilaa 12 qof oo inay booliisku halkaas ku xireen ayaa waxa la soo sheegayaa dadka dibadbaxaya inay bartamaha magaalada London taala ku taalay oo lagu maamuusi jiray taalada dadka xilligii la soo gadanayay dadka madow ayaa waxa ay gabi ahaanba taaladii meesha ka fujiyeen iyaga oo ku tuuray webiga dhaxmara bartamaha magaalada London waxaan kaloo idiin haynaa daawadayaal dalka Mareykanka xildhibaanada laga soo doorto gobolka Minneapolis ayaa waxa ay khudbad dheer oo ay ku qabateen bartamaha magaalada Minnesota waxa ay sheegtay inay ka soo horjeedo falkii foosho xuma ee loo geystay iyo falalka ay tiri wili booliiska dalka ama booliiska gobolkeena waa ay sii wadaan iyadoo ku tilmaantay waa arrin waali ah in uu falal kale ay ka sii dhacaan oo ay boolisku geysanayaan iyada oo tiri waa in si adag loola xisaabtamaa booliiska shacabkuna waa inay sii muujiyaan ayay tiri oo ay ka sii damqadaan ama ay sii wadaan mudaharaadyada waxaan kaloo idiin haynaa daawadayaal waxaan ku jirnaa wararkii dalka Mareykanka ee waxa dabeelo roobab wataa ay ku dhufteen gobolka Mississippi iyadoo la sheegayo in dabeelahaasi iyo roobabkaasi ay kuwa aad u baaxad weyn dhammaan kala xiray magaaladii waa Bolmog Media tan iyo kulanti dama oo hay'ad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi